madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu maanta warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirka dalka Japan u fadhiyi doona dalkeena mudane Horiya Lioich. madaxweynaha ayaa si diiran u soo dhaweeyay safiirka kadib markii uu warqadaha aqoonsiga ka gudoomay. safiirku waxa uu madaxweynaha soo gaarsiiyay salaan diiran oo uu ka waday boqortooyada dalkiisa. sidoo kale safiirku waxa uu madaxweynaha soo gaarsiiyay dhambaal uu ka waday ra'iisul wasaaraha dalka Japan mudane Shinzo Abe. dhambaalkaas oo mahadnaq iyo bogaadin uu ra'iisul wasaaruhu ugu soo jeediyay madaxweyne Farmaajo ka qayb ahaanshihii uu ka qayb galay shirkii horumarinta Afrika iyo Japan ee tigaa 7 oo August dabayaaqadeedii ka qabsoomay dalka Japan. waxa uu ra'iisul wasaaruhu dhambaalkiisaas ku xusay inay muhiim tahay in la fuliyo qorshihii wadajirka ahaa ee Soomaaliya iyo Japan ee 3 sano ee soo socda. danjire Horiya waxa uu xusay in dalkiisu uu qayb ka noqon doono horumarinta nabadgelyada iyo maalgashiga dalka Soomaaliya iyada oo dhawaan dalka Japan uu fulin doono qorshe ballaaran oo dib loogu qaabayn doono qaab dhismeedka magaalada Muqdisho. sidoo kale waxa uu qorshuhu yahay in dawladda Japan ay qayb ka noqoto qorshaha ballaaran ee dawladda federaalka ay wado kaas oo xal waara loogu heli doono dhibaatooyinka soo noqnoqday ee wabiyada Juba iyo Shabeelle iyada oo dhawaan dawladda Japan ay caawimo cunto ah dhaqso u gaarsiin doonto dadka ay dhibaatadu ka soo gaadhay waxyeelada fatahaadaha ee wabiyada. dhankiisana madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu dalka ku soo dhaweeyay danjiraha isla markaana waxa uu hordhigay qorshayaasha iyo barnaamijyada hortabinta leh ee hor yaalla dawladdeena.